hay-adda caalamiga ah ee caafimaadka adduunka u qaabilsan ee lagu magacaabo WHO ayaa madaarka caalamiga ah ee magaalada Berbera ka soo dejisay karatoon aad u tiro badan oo kala duwan oo ay ku jirto daawo dhacday taasi oo dhaaftay waqtigii la isticmaali lahaa sida ay maanta noo xaqiijiyeen mas'uuliyiinta hay-adda quality controlka qaranka ee dabagalka ku sameeya alaabooyinka dhacay ee dalka ka soo dega waxaana dawooyinkaasi dhacay ay keentay hay-adda WHO lagu calaamidiyay qalan cas dheedkii ay dhici lahayd Cabdirashiid Cabdilaahi Muuse oo ah isuduwaha hay'adda quality controlka qaranka ayaa waxa uu sheegay in ay dawooyinkaasi ay dalka keentay hay'adda caalamiga ah ee lagu magacaabo WHO taasi oo ku tilmaamay nasiib darro weyn isla markaana xaqiijiyay in hay'addaasi aanay damba ka lahayn shacbiga iyo dalka toona balse loo baahan yahay in xukuumadda Soomaaliland ay faraha la soo gasho arrimahaasi isla markaana wax laga weydiiyo hay'adda WHO iyo sababaha ay dawooyinka dhacay uga soo dejisay dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan madaarka caalamiga ah ee Berbera WHO ayaa noo keentay dawadaas way dhacday qalina waa lagu masaxay sidaan idinka tusnay TV-yada iyo laga duubay dawadaas way dhacday qalina waa lagu masaxay waxaan u sheegaynaa dawladda in WHO ay dawada keentay waxa weeye cawaaqib xumadeedana iyo wixii ka yimaada iyo dadku haday wax ku noqdaanna in ilaahay noo wada qabsanayo waxaan ogeysiinayaa dawladda inay arrinka daba gasho oo hay'adda WHO la yiraahdo inay weydiiso ujeedada u keentay dawada dhacday isaguna sidoo kale waxa xaqiijinay hay'addaas ay ka soo dejisay madaarka magaalada Berbera dawadaasi dhacday isuduwaha laanta immigration-ka ee madaarka caalamiga ah ee magaalada Berbera ilaa haddana ma cadda talaabo cad oo ay ka soo saartay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland dawooyinkaasi dhacay iyo waliba sidii looga kantarooli lahaa hay'adaha Kenya iyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland dawooyinkaasi ayaa waxa ay sababi karaan khasaare aad u badan oo ku iman kara bulshada caafimaadkeeda Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera